بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا لا سوماليد ملت جوجتان بإله سبحانه وتعالى يدكوان ما يلو عدي دبانبك الله كقادو عدي دن الله وفيه انت بان الله ديقو انت بوقت الله بوكسيو انت دمت الله ونحرستو والدينتين الله ونحرستو أننا الله نوغد بنحرستو dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa laba qodob. qodobka koowaad, aadan yabaal oo gashay gacanta al-shabaab, madaxweynaha oo uga hadlay si aan siyaasad ahayn. labo, qodobka labaad, Faysal Cali Waraabe oo muujiyey dareenka ay qabaan siyaasiyiinta reer Somaliland in badan oo kamid ah ay ka qabaan qadiyada al-shabaab. waa markii koowaad waxaa dhacay dagaal kadis ah, dagaal la filayay actually oo xogtiisa la hayay, ayna dhacday ciidamo inay ka baxeen magaalada inta aan dagaalkuba dhicin. arrintaasina ay keentay fashil ku dhacay ciidankii meesha joogay. aadan yabaal waxay ahayd xaruntii ugu weyneyd ee ay ciidamada isku urursadeen, ciidan xoog la joogay, rasaasoo dhan ay taallay, hubkoodii oo dhan u yaallay, la oran karo saldhigga forinta linekaas shabeellada dhexe iyo hiiraan ilaa galmudug forintigaas oo dhan meesha saldhigga u ahayd ayay ahayd. aadan yabaal waxaa joogay taliyihii ciidanka ugu sarreeyey, guddoomiyihii maxkamadda. waa meeshuu madaxweynuhu ku noqnoqon jiray. waa meeshii ay salka dhigteen SNA. la filimayn meeshaasi inay gacanta shabaabka geli karto. waxaase dhacday oo aan ka aamusnayn ilaa 8 ilaa 9 degmo oo yaryara, tuulooyin yaryara ama deegaano yaryara oo ku hareeraysan in horey loo qabsaday, in horey ay soo baxaysay qayladhaan odhanaysaa taliyaha ciidanka khatar buu ku jiraa, madaxweynuhu meesha uu tagayo waa meel khatara. ma garanaysaa dadkuna ay ka afgobaadsanayeen ama ay iska ilaalinayeen inay ka hadlaan. waxaan ognahay dowladdu inay oran jirtay haddii la sheego al-shabaab inuu guulaystay inay tahay af shabaab, kelmaddii fakatay oo baxday oo terminolojiga cusub ahayd, af shabaab baa tahay. madaxweynuhu maanta waa af shabaab, isagaa ku hadlay, qiray, sheegay. mana ahayn madaxweynuhu saa u hadlo. runtiina waxay ahayd siyaasad xumo iyo aqoon xumo. militarigu spokesperson buu leeyahay, iyagaa la rabay inay ka hadlaan. qaabkay uga hadli lahaayeen iyagaa yaqaan. waa inay leedahay qaybta miidiyaha la hadasha. caalamku meel walba, wasaarad walba iyo hay-ad walba oo dhisani waxay leedahay qayb miidiyaha u qaabilsan. marka madaxweynuhu isagaa wax walba ah, shaqadoo dhan isagaa gacanta ku haya. xukuumad ma jirto, maamul ma jiro aan isaga ahayn. isaga iyo caruurtiisa iyo reerkiisa isgarab ordaya. arrintaas waxay keentay ciidanku inay lumiyaan moralkii, wadaniyadii iyo geesinimadii lagu yaqaanay. gebi ahaan bayna lumiyaan. ciidamada Soomaaliyeed argagixisa kama adka. meel kastoo iskaga hor yimaadaanna waa ka adag yihiin. waa haddii ay haystaan moral rasmiya iyo dowlad ay ku kalsoon yihiin. haddii ogyihiin madaxweynahoodu inuu ganacsada yahay, inuu cadow iyo dowlado aan la garanayn waxa ay ka damacsan yihiin Soomaaliya, ama loo og yahay inay rabaan burburinta Soomaaliya oo qaarkood aysan baqarsanayn, inuu saaxiib la noqonayo oo hoosta kaga jiro ay arkaan siyaasado iska soo wada horjeedo oo meelay u socdaan aan la aqoon inay ku hardamayaan. maxay ku diriraan? hadday og yihiin meeshii ay shalay qabteen oo ay ku dhinteen oo rag hebel iyo hebel iyo hebel kaga dhinteen, saaxiibadood iyo qaraabadoodii iyo raggoodii ay ku dhinteen, bari inay gacanta ka baxayso hadday og yihiin. what is the point? siyaasad iyo dagaal aan istaraatiijiyad lahayn ayuu xasan dalka ku maamulay, waana la lumay dalkii oo dhan. waxay maraysaa inuu yidhaahdo waa layga adkaaday oo shabaab baa iga adkaaday. xasanow, hadday arrintu halkaa marayso, marar badan baan kuu soo jeedinay, ma maamuli kartid dal. capabilitygeediina ma lihid iyo awooddeedii, rabitaankeediina ma haysid. adeerow dalka gacanta ha ka bixine, isugu yeer dadkii Soomaaliyeed gacantana u geli, ku wareeji
isna casil inta xilka kaaga hartay iska casil arrintaasi waxay badbaadin kartaa dabagal dambe iyo in maaragtay hadhow maxkamadda lagugu furo markii aad dalka ka tagtid maxaa yeelay waxaa la oran karaa qofkan qof daacad u ahaa wax uu arkay inuusan waxba qaban karin wuu is casilay laakiin haddaa saan kusii socotid dalkuna gacantu ka baxayaa adiguna waa lumaysaa ummadduna waa lumaysaa haddii dowlad xoog leh ay soo noqotana maxkamad baa lagu raacan doonaa wixii aad boobi kartay waa boobtay wax ku haray ma jiraan isbitaallaha ka haray dalkii dowladdu hantidii ay lahayd oo tirada badnayd oo aadka u tirada badnayd iskuulladii iyo isbitaalladii baa ka haray qaarkood oo aad qaar gadatay qabuurihii baad gadatay wax ku haray ma jiraan dalka intaa ugu jooji enough is enough intaasuu ku filan ummadda soomaaliyeed haddaabad maraysid al-shabaab baa iga adkaaday oo meeshii aad shalay ka degaysay oo doraad ka degaysay oo diyaaradda aad ku noqnoqonaysay oo aadan yabaal gacanta ay ka baxayso mushkiladuna ay tahay ciidamadii inay sheegeen in lagu dhex jiro saraakiishu khabarka bixinayaan in la sheegayo meesha wax yaallaan meesha ay saldhigga u ah la yaqaan hubku meeshuu yaa la garanayo rasaastu meeshay taa la yaqaan cuntadu meeshay taa la yaqaan cuntadoodii la boobayo ciidamadii yacni dhaqanka nooc aysan xor u ahayn istaraatiijiyadooda aysan xor u ahayn ma ujeedaa jooji dagaalkan qaab ka daran oo aan macnaha lahayn oo aan meel u socdo la aqoon oo aadan istaraatiijiyadeedii u hayn oo aadan raggeedii u hayn jooji dhalinyarada inta hartay ha dhammayn wixii aad dhammayn karta dhammaysay inta hartay badbaadi adiga intaasaan ku oranaya Zamil Twin Towers oo ka kooban 2 tower waxa uu ku yaalaa xaafadda Parkland gaar ahaan Ring Road waxa uu saaran yahay xaafadda Westland gurigan waxa uu ka kooban yahay 4 qol iyo qolkii shaqaalaha ee DSQ-ga musqulo jiko iyo balkoono gurigan waxa uu leeyahay adeegyadii oo dhan sida 4 lifti oo tower walba uu leeyahay CCTV camera security 24 saacadood motor elbiod parking masaajid dugsi quraan goobaha caruurta ay ku ciyaaraan farmashiye supermarket iyo dhul weyn oo loogu talagalay in dadka degan guriga ay ku lugeeyaan waxa gacanta ku haya dhismaha gurigan culimo u diin Soomaaliyeed oo horey u soo dhisay guriyo waaweyn ka faa'iideyso fursadda guriga Zamil oo la iibinayo qiimo aad u macquul ah oo ku raali gelin doona fadlan la xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaga muuqda Zamil Twin Towers kelmadda labaad Faysal Ali Waraabe wuxuu soo qoray Twitter uu leeyahay Allahu Akbar al-shabaab dalkii qabsaday ilaahay baan idinku dhaarshay ma wax intaa ka shisheeya oo qof dhihi karo oo lagu markhaati furi karo ama lagu cadeyn karo qofkaas inuu al-shabaab jecel yahay oo la shaqeeyo baa jira ninkaasi waa ninkii wiilkiisa lagu dilay Syria isagoo Daacish ah ninkaasi wuxuu ka mid yahay hadda ka hor security council-ka waxaa laga dhex akhriyay oo panel of expert ay soo saareen report oranaya dawladda maamulka Musabixi oo madaxda ka ahaa ee Somaliland waxa ay dhaqaale ku bixisaa taageerta al-shabaab waxaan ognahay madaxdeeda dhamaanteed inay ka yimaadaan waqooyi waxaan maqalnay hadda ka hor boqor buur madow oo laba dawladood baa dalka ka dhisan oo koonfurto mid anaga leh oo dirba hogaamisa oo al-shabaab sidaas Faysal uu maanta cadeeyay ayaa ummadoo dhammi farta awal ugu fiiqaysay maamulkaas panel of expert waxay sheegeen wasiiro uu kamid yahay Waran Cade iyo Cali Mareexaan inay lacag ku bixiyaan al-shabaab waxay sheegeen wasaaradda qorsheyntu inay dhaqaale joogto ah siiso al-shabaab in ay leeyihiin xubin joogto ah oo ku jirta guddiga shuurada oo aan dhicin oo mar walba ay xubin ku leeyihiin inay og yihiin shir walba oo madaxda ugu sareysa al-shabaab ay galaan maanta Faysal baa cadeeyay wixii la qarinayay Faysal waana waxba qarsan karin siyaasina aan ahayn oo macna lahayn caatifaduna ay ka tan badan tahay oo wixii markaa hayo oo isaga ku jiro oo qaras ah aan qarsan karin banaanka keena wuxuu inoo sheegay siyaasiyiinta reer Somaliland sida ay ula dhaqmaan ama ay ka aaminsan yihiin kooxda argagixisada ah ee al-shabaab khawaarijta inay ka tirsan yihiin oo ay la shaqeystaan oo awal ay dawladda waaweyn ku sheegeen waxaan ognahay hadda ka hor shirkii Ingiriiska Siilayo markii uu tagay Ingiriiska in lagu bahdilay laguna eedeeyay inuu al-shabaab la shaqeeyo ilaa iyo hadeerna
dowladooda lagu eedeynaya al-shabaab la shaqayso caruura ugu dhasha madaxdooda xaasaskooda degan intaasoo jeer baa lagu eedeeyay maanta ay caddaatay waa kaa Faysal banaanka soo dhigay inta commentiga ugu jirtana oo reer Somaliland ah dhamaantood waa dabaaldegayaan kulligood waxay ku dabaaldegayaan muqdisho in al-shabaab qabsado wuxuu ku leeyahay juun bay qabsanayaan haday ugu liitaan oo ugu dambeeyaan kelmadaasna intaasan ka horreyn waxaan ku khatimayaa hambaliyo reer Baydhabo oo si fiican isaga caabiyay argagixisada soo duushay marka ay ciidanku Soomaaliyeed ku dagaalamayaan moral iyo ujeedo argagixiso agtooda qori kama jabsan karto sidaas ay isaga dhiciyeen reer Baydhabo ayay isaga dhicin jireen SNA meel kasto ay isugu yimaadaan sidaa ay isaga dhiciyeen reer Puntland ayay ciidamada SNA isaga dhicin jireen ugana adkaayeen al-shabaab oo argagixiso khawaarij ah mujrimiin ilaahay ka fogaaday oo tuuga hoggaankiisa oo hantida iyo dhiiga umada booba hantidoodana booba dhiigoodana daadsha way ka adkaayeen ciidanka Soomaaliyeed Baydhabo sida isaga dhicisay bay isaga dhicin kartaa Soomaali sida Hiiraan isaga xoreysay oo banaanka uga saartay ayay isaga dhicin kartaa qabaa'il hoosta ku haysta marka laga reebo Soomaalidu al-shabaab way iskaga filan tahay iyo khawaarij iyo daacish banaankeena iska mari kartaa laakiin waxay u baahan tahay hoggaan dhab ah oo daacad ka ah dagaalka oo hoggaamin iyo istaraatiijiyad dagaal oo run ah oo daacadnimo ay ku dheehan tahay la yimaada markaas Soomaali way ka xoroobaysaa insha Allah ta'ala al-shabaab khayr badan baa idin rajaynayaa wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh